sida arkaysaan CPI baa soo baxaya 2 daqiiqo kadib yearly iyo monthly labadaba numberkan ku mataqaanaa forecast gareynayaan inuu kusoo baxayo oo number ka sareeya numberka hore marka gold haddii aan fiirino technically from high time frameska to low time frameska bullish buu u muuqataa hadda candlekan 15ka haddii uu sidana ku xiro reversalka uu sameeyo gold markaa waa bullish intrigan waxa uu bixin kartaa newska buy anigu actually kuma trade garanayo yani asalku insha Allah kama hooseyn karo lowgan baa u deynayna insha Allah 50 kaabi and then insha Allah 100 bib camal baa target ka dhigana only one analyze anigu wax trade kuma aan jiro totally waxa rabaan inaan ka faa'iideystaan kaliya marka technically gold waa buy from 4 hour ka to 1 hour ka dhamaan waxay joogtaa meel fiican oo soona gaabkaas sida arkaysaan iyo silamada 15ka marka hore halkan si xoog ah suuqa lagu soo baagiray baagan halka uu ka soo kacay way gaabkan so next time meeshii ay joogtaa so 1 minute dhiman newskana 1 minute kaas dhiman iyo candleka inuu xirmo so then candlekana haddii uu kan ku kor xirana waa so good oo marka the next candle wuxuu sameyn karaa retest oo newska spark yar kadibna toos boom buu dhigi karaa sidaan ka rajeynayno way marka taa wax ka dhigantaa USD JPY lacagaha kale tan sell bay noqon doonaan fahmaysaa yani lacagaha USD da ka horeyso iminka euro laftarkeeda euro ama pound-ka GBP da GBP USD ayada laftarkeeda bullish way fahmaysaa ayada laftarkeeda waa bullish dhaqaaq fiican meesan leh maanta dhan ringing bay soo sida arkaysaan ayada laftarkeeda soon bay joogtaa marka kasoo candleka week dheer qaadanayo laakiin iyada xitaa waa bullish so aynu aragna insha Allah bal sida uu ku soo baxaa uu soo baxay newska boom already aragtaa sama 70 step so trade ka already waa break even ana actually kuma trade garay hadda wax trade ana kuma jira laakiin wala wax raax insha Allah ina aragtiin waxaan ka faa'iideen soo arkaysaa sama GBSD waa ku sheegay boom so fiican bay joogtaa iyadana marka qofkii laakiin waxaan ku trade garay hadda iminka trade-yada already uu ka faa'iideysto waa macna